kan aan xajiniyo weer ku xagan lahayno wariyayaal la soo xulay xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe qaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon in xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلتو وناكسن دمان باقيات مداورساي كسو دوادا مركله iyo barnaamijkeeni kaftanka siyaasadda. barnaamijka kaftanka siyaasadda waxa aalaaba halkan ka daawataan toddobaadkiiba hal mar saacadahan oo kale. barnaamijkaasi waxa isku soo dabarida inoo soo diyaariya halkan inooga soo jeediya waa Cali Cabdi Xirsi Cali Xaraare. waxa caawa aad ka heli doontaan barnaamijyo anina bacaadahayn calo soo saasma si wanaagsan marka hore intayna barnaamijka u gelin waxaynu iisoo gudbi doonaa bal dadweynahayaga ama daawadayaashayada ku nool dunida dacaladeeda iyo fikirka ay ka qabaan kaftanka siyaasadda. daawasho wanaagsan. عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعبد الحكيم فارح وجوغا ودك كينيا gaar ahaan caasimada Nairobi. waxaan halkan aad iyo aad uga hambalyeynaya soo saarayaasha barnaamijka kaftanka siyaasadda wariye Cali Xaraare iyo wariyaha kale weyn ee Yaasiin Ducaale. waana ku mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad u soo deysaan barnaamijkan oo ah mid ka hadlaya xaqiiqda jirta. waana ku mahadsantihiin aad iyo aad baan ku mahad celinaynaa hadana shacabweynaha Soomaaliyeed. waana barnaamij kaliya ee xaqiiqda ka hadla. aad baan ku mahad celinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxaan ka salaamayaa barnaamijka kaftanka siyaasadda ugu horeeya Cali Xaraare iyo Yaasiin Ducaale iyo Badri dhammaan waan islaamay. waxaan leeyahay Caliyow ninkii iska hadlay baa iska hadlay wallahi hawl ugu dambaysaa way tiri marka barnaamijka halka ka sii wad waayo barnaamijku qofku ma socdo cid kuma socdo waa hagaag aynu dib ugu noqono Cali oo niraano calow maxaad inoo haysaa maanta qodobo badan baa noo hayaa Badri adiga Yaasiinba waxaynu marka qodobada hadaan dul maro marka ugu horeysa waxaanu eegi doonaa gudoomiyihii ama duqi magaalada Muqdisho Thabit oo shaqadii laga casilay shaqadii laga saaray arrimaha ku hoos jira waxaanu eegi doonaa weli kufsiga baa socda Soomaaliya inagoo wiiga hore sheegnay in Hargeysa laba wiil ay ku kufsadeen gabadh ayaa haddana imika waxaan tagi doonaa aan hal case kale oo kufsasho kale ah oo dhinaca Puntland waxaan eegi doonaa qaadkii Somaliland oo isaguna isu bedelay hadwa jaadki jeegaanta iyo hadii la ruuxaanta jaadku isku bedelay laba qaad baa kala cunaya mid ruuxaanta leeyahay midna jeegaanta ruuxaanta waa erigi biriga bixiyay waa tii aad bixisay waa qolo jeegaanta daan ahayn waan gartay marka jaadka jeegaanta iyo jaadka ruuxaanta marka waa laba magac kala leeyahay laba magac kala leeyahay wana kala murqaan waalaynde waan gartay halkaana waxaan ka garanaysaa kala qaalisan ma waxaan eegi doonaa xambaarka ilmaha marka la xambaaray waxaan eegi doonaa gudahaynu hadhow ku falanqeyn doonaa heestii barbar ee dadka wareerisay originally ninkii bilaabay ayaa waxaan socdaba aan ka daba tagay waxaan ka soo helay diridhaba ka calow ma ninkii iska lahaaba hees ninkii bilaabay waxaan qaafiyada noocan u dhacaysa qaafiyada mise heeska ninkii lahaa waa heesta dawaayadu waa tii oo koobi laga samaystay markaasna wuu ka hadli doonaa arrimahaasi iyo arrimo kale oo fara badan ayaynu ku soo qalan doonaa waayahay aan inoo bilaabo marka hore Thabit waa gudoomiyihii gobolka Banaadir isla markaasina ahaa duqa magaalada Muqdisho wuxuu ahaa nin runtii u muuqday nin shaqaynaya oo dad badan indhahooda soo jiitay isagoo iska wax u qabso iyo baraarujin wacyigelin barnaamijyo ah dadweynaha reer Muqdisho u soo gudbiyay wuxuu u muuqday nin aad u danaynaya in dawladnimada la aqoonsado oo dadku ay bartaan in loo shaqeeyo cadaalad sinaan iyo wanaag laakiin dani walba siyaasaddu waa iska cajiib dhinac bay ka tusaysaa ninkii isagoo aad u fiican ayaa arrin kale oo baashu waa interest
interest kale u helay dan kale oo gaara mid kale ha dantu maxay tahay waa dantii qabyaaladda Soomaali waa shay qola calo ka shaqeysan marka hadduu weligiiba dee taabid fiicnaa oo wanaagsanaa qolun baa gelinaysa qola gelinaysa waa laga shaqeysan qolun baa gelinaysa waxay dhahay wala waxaan hawl ka fiican ayaan ku haynaa oo maxay tahay waxaad noqonaysaa gudoomiyaha waxaad noqonaysaa madaxweynaha maamul goboleedka banaadir hadda markaa waa quud aan jirin qoryo gorod marka horta maamul goboleedka ma jiraaba banaadir ma jiro marka waraysa la iskuma raacsana dhisidiisa waayo waa caasimad baa lagu doodaa Muqdisho marka iyadoo xaqaa ma leh Soomaaliya dhanba ka dhaxaysa Soomaaliya dhanba dhaxaysa waa saas dabeeto xasan sheekh baa diiday shariif ka diiday farmaajo iyo xukuumaddiisa diiday arrin la isku raacayo ma waa saas okay marka muxuu hadda marka calaw ku keenay isagu inuu arrinta qaato isagu wuxuu ku keenay dee hanka siyaasaddu ereygan la yiraahdo madaxweyne Soomaalidu wuxuu ka yahay khatar madaxweyne mar dhax isaga iscazilay ninkan mise wal cazilay marka ma wal casil doona isaga dhiibay oo yiri aanu taasan sheekada waa soo wada madaxweynuhu xilliga wuxuu ku maqnaa booqashooyin uu ku tagay gobolada dhexe farmaajo wasaas dabeetana waxay isiraahdeen qolada isaga la shirtay intuu farmaajo maqan yahay ka gaarsiiyaba dadkii isagu uu magacaabay ee gudoomiyaasha degmooyinka banaadir ahaa ayun baa dib ugu yeeray intay soo fadhiisteen u beedadeen waxa tahay 2 sano horta waa ku buuxinay oo si ahaanaysid duqa magaalada waxaan kaloo markaa kadib 2 sano aan ka shaqeynaynaa in aanu dhisno dawladii iyo maamulkii gobolka banaadir adiguna waxa tahay madaxweynaha dhabta meel kale laga raadin maayo madaxweyne saxa wasaga ha marka dawladuna waxa leedahay sirdoon farmaajo ha maqnaada laakiin meesha khayra sii joogay sirdoonkii khayre ayaa tallaabo uga socday qaarkoodna ay meesha ku jireen dabeetana madaxweynuhu la xidhiiray khayre waxa la si degdeg ninka hadiiba uu sameeyay khiyaamo qaran oo isagoon dawladdu u soo bandhigin oo madaxweynimo cidla ah uu galay dhiilka hala burburiyay dabeetana waa loo tago waxa la yidhi weliba accountka bank duqa magaalada ama gobolka banaadir waa in la xidho waa inaanu safri karin waa in house arrest hadalka waxa soo jeediyey oo go'aanka ku dhawaaqay afhayeenka gobolka banaadir bal isagoo hadalkeeda waa kan saxaafadeed ka soo baxay bulshada gobolka banaadir caawa ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 1 ee Janaayo 2018 ujeedo war murtiyeed ka soo baxay bulshada gobolka banaadir kadib markii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir ay dawladda federaalka ay ka waayeen xuquuqdii dastuuriga ahayd iyo matalaadii ay lahaayeen ay ku lahaayeen labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii dadweynaha reer banaadir ay safraayeen muddo fog ayna sugayeen inay helaan xuquuqda ay leeyihiin waxa ay dadweynaha gobolka banaadir go'aansadeen inay qabsadaan shirweyne looga tashanayo masiirka iyo aayaha gobolka banaadir waxaa shirweynahaas ka soo qayb galay xubno matalaya 3 milyan iyo barka muwaadin ee ku nool gobolka banaadir oo isugu jira golayaasha degmooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba dood dheer kadib waxaa shirweynahaas ka soo baxay qodobada soo socda 1 laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 1 2018 waxa ay si ku meel gaara u doorteen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Saabid Cabdi Maxamed inuu noqdo 2 sano ee soo socota inuu hayo 2 sano ee soo socota xilka gudoomiyanimo ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada marka waa dawlad jirta oo dawlad kale ka dhinac dhisay waa inqilaab camal dabeeto waxa laga dhigay almuhiim duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Yariiso oo warfaafinta joogay sheekada la yaab kale waxa weeye
raggii shalay la fadhiyey taabit ee lahaa waa ku raacsannahay oo madaxweynaha tahay oo qaar odayaal ka mid ah hadleen oo yidhahdeen waxa weeye 3 nin isku mar bay yimaadeen adigoo taabida khayr ra'iisul wasaaraha iyo farmaajo madaxweynaha 3 nin isku mar ba baxaysan mooyaan kaliya laga qaadi karmay raggii sida lahaa ay ba markii yariso laga dhigay hadana duqa magaalada garabkiisa fadhiyay wala asheen wax lahayn aad baan ku taageersanay mid kamida markii la yiraahdo maxaa kaasi sawirkii shan waad ku jirtay ayuu yidhi aniga wax la sheegay shirku inuu wax kala ahaa hawlka marka dadka horta waa dadka hadba dhinac u socda marba meesha ka shidan tahay marka anyway ka shidan tahay imika waxa ka shidan tahay yariso ninkii u tagay iyo ninkaan u tagayn ba halkaas ka dhaway waan ka gudbi doonaa waaya madaxweynuhu waa kii safar ku marayay gobolada dhexe iyo maamulada Puntland ee kamid yihiin meelo badan buu runtii soo taabtay meelaha soo taabtay waxa kamid ah Caabud Waaq oo ah meesha uu sigano ka soo jeedo horta intii uu marayay Puntland galmudug iyo meelo kaleba ilaa hubiyo tiri madaxweynuhu wuxuu soo meel uu ku arko khilaafkii ugu xumaa Caabud Waaq buu waxa jiray meesha ku soo magaaladu 3 meelood buu kala digay ولا كلا دقيقة دبك لما كلا قاطو وروح كنا ويلي دبيتنا محاد الله السلامة ورتا تلقوا بهشيس معها مدحينه حدنا مدة يكون قاطو حيل ورا ده تسلم السلامة بوتلان يقل مدو يدك الدواب هذا بدن يكهري هذا هيا صومري دتك بهشيس يعبد لك عيش يدكون الملح اللي بكره قاعد مثلا ملح اللي بقى اسمه اللي بقى قاعد مثلا اي هرت غوريسي ايو نبدي قبل ها بالجماعه الشارع رغان السلام جير هي sheekada dad anu waxisay waxa weey magaalada Caabud Waaq waxa booqasho ku tagay 1986 hadii ilaahay ku reeyay Maxamed Saad 1986 هي dabeeto Maxamed Saad wuxuu yiri maxaad iga baahantiin wada codsanaysaa ninkii governorka xilliga ka ahaa ayaa hadlay oo yiri dadka markii aan eegay waxaan u baahanahay in loo dhiso xabsi jeel jeel u baahiye aye wa 86 ninka la yiraahdo farmaajo ayaa markii uu tagay oo uu dadkii ay yiri bal wax yeeshaan qolba waxba ka cabinaysay idinku marka maxaan idin sameeyaa waxay yiraahdeen waxaan u baahanay oo daruuri ah oo laga maarmaan noo ah in aad noo sameeysid xabsi xalo maarmada saasi yiraahday ماشي وفوض تعال وبالرسالة دبتنا نك الله هذا فرماجو حاجة مو يجيني دقيق يوري أيو دقيق حبسي كذا هورنا مو هين بقى ولا جاب إننا وجيب أيه مركز شو غير عبود واق إذا بري محمد سيد بريس هين ماشي ومرف وفوض مركز صدق والله أكل الدقن صدق لما يودك الدقيه أيام واحد دون حبس كاك بحيان حبس وبانت مركز ما يودي سن عسبتال ما يورن اسكول نورس حبس شال مربع على اسكول شكل مركز أنا وراها ما دب بدنا شال ولا بس صدق حافظ طفلا الله سبعي الله سبعي ومركز دتك حريو هلو قاطو 4.5 حافظة انت كحدا حافظ انت وي ومركي ورسان واحد نقول حبس دربنا يا وي بل مركز نقدر حيسيسا كنا صنو haldhaha international product company inkastoo hibaaqay midabka hilaacay heemaal dhalaalka ee halka galeed raaftii hirfog laga arkayay habeenkii iftiimiyo timaha haldhaagay haabhaabtay sinahee aad haatan leedahay hibe ee babixiyo rabigugu hagoogiyo yihiin haybad iyo sharaf waa inaad had iyo goor kiimikalka ah halistee foolka kaa haleeyay oo horseeda finankiyo wixii timaha heeree kaa hoorinayay hagardaamo oo idil hubsatood ka dhowrta allah kuwa aan la hurinay timaha kuwa hagaajiya haraqiyo basaastiyo ka hiraaya toxortee nafaqada ku habayana ugu hagar baxdaayo saliidaha horyaalka kariimada la hubay iyo shaambooyada hadheer yimi ee haldhaa ay ku qoran tahay hagaag ugu macmiisha haldhaa international product company waa kumana casri oo fadhigiisu yahay dalkaasi Mareykanka wax soo saarkiisana u soo gudbiyay wadamada qaaradda Afrika oo soo saara alaabooyinka ay kamid yihiin saliidda shaambooyada kariimada iyo sidoo kale nafaqada timaha la mariyo oo casri ah ويا
waay ka rogo laba saar toddobaadka hore waan naga sheegnay in gabadh laba wiil ay ku kufsadeen magaalada Hargeysa xaafadda October oo waliba wiilasha midna waa abti ahaa midna waa adeer ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya sharcigii labadeenin ilaa hadda lama soo taagin lama doonayo in la soo taago sharcigu wuxuu qabtaa ninka danyarta waaya marka gabdhaheeni oo lagu gafayo oo la xumaynayo ayaa weli ii muuqda aniga meelo badan baan telefoon u diraa oo aan raadiyaa kiisaska noocaas iyadoo taas ay weli laalan tahay ayaa haddana waxaan soo helay gabadh 7 jir oo nin uu ku kufsaday duleedka Dangorayo qarxis meel la yiraahdo iyo Dangorayo waa Puntland Puntland haddii aadan kala aqoon Solo Chief waxa ku xigta Dangorayo marka Dangorayo xagga qarna marka loo soconayo xaaji khayriyo meel la yiraahdo la sii mara marka dhinaca maaha Dangorayo marka xagga laga aado cadceedka soo bax qiyaastii ayaa qarxis iyo ay ku yaalaan ayl marka loo socdo marka between qarxis and Dangorayo way 7 jir baa 7 jir ku soo abeed markuu u caal waayay qoladii ninkii dacwadiisi ayuu markii dambe ninkii oo meel taagan ciil darti intuu dhingad qaatay buu 7 olood ku dhuftay ninkii gabadha ku saday oo halka taagan maalin walba oo aan cid wax odhanay dabeeto gurigiisu iska tagay maalintii ku xigtay ayaa kii wax ku saday walaalkii intuu bir soo qaatay ayuu halka ku dhuftay kooma ayuu galay marka walaalkii buu arkay dulmiga geystay ayuu dulmiga ku sii gargaaraya ku hiilinay dabeeto ninkaas wuxuu imka jiifaa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa waa odaygii gabadhiisa la kasaday oo dulmigii oo dulmi labaad loo sii geystay ruuxa daya marka oo dhibaatay nin baa beri intuu daawaday movie wadanka Egypt Masr ayuu arkay khaaimiintii dadkiisa u leynay madaxa garaacayo marka wixii filin uu moodin wax mooday dhab ما فيش حكومة هنا بقولي ماشي المال حكومة ذي كذي مركا واحد سيري الدنقر يدولك ومدبد ماشي المال حكومة ذي كذي إلا إنهم مريكن شونا أيام هلا إن قرح يصير الدنقر نحن قبل يلوقف صحيح سيدي حكومة دي بتلان جرو وشوكتي أنا وركا وهين وأنا تلابا وقادين مركا وضلني ولا درجاريو وايه إذا يسوه ذي ومد الصوماليين واللي برجع الصومالي وايه waxaan tagi doonaa mar kale Hargeysa ayaan ku cindo على باشا محي وديو باشا إنه تقاربا وحويه وانا وينيس halkan dee warqadii uu barnaamijkii ugu qoraa ayaa ku jirta lights baa leedahay oo habeenkii aan wax ku akhriyo hadii aan dadku sharaxo wallahi way ka bidhaamayaan waana dee sulan kartaa labada gacmood qolo isweydiinayso waxaan leeyahay bal adu siiyay ma garanaysa nin baa berlin nin baan arkay comments wuxuu soo qoray to bahash inta la egninku macaloosh ku haya marka aad calool kuma hayee waa sidii marka afrikan wala duri doonaayo warqadana way ku yar weyneynaysaa muraadi waxa ma baahnid xitaa okiyalaanbad ku akhrisa wax kasta marka anu tan sideeda marka akhrisanay guriga ayaan ba isticmaalaa anoo iska fadhiisa waaya taasina wata marka magaalada Hargeysa jaadka qaadku wuxuu ka soo gali jiray dhinaca galbeedka magaalooyinka Gabil iyo xagga kala barkii wajaaliyo wad garanaysaa dhulka labadiinaba wasaas markay soo baxday sheekooyinkan la yiraahdo jeegaanta iyo ruuxaanta aan ugu daray ayaa niyo arrinkii jeegaanta meel xun gaaray dabeeto ruuxaantii ayaa qaadkii ka joojisay in xagga soo maraan qaadka ruuxaanta wuxuu soo maraa dhinacan ood weyne iyo burcu soo gala dabeeto jeegaanta ayaa gawaari barownaa ka horgeysay hawdka la isreeyay iyana 20 barown bay leeyimaadeen dabeetana Muuse bixi telefoon baa loo soo diray ina kayn boo soo diray wuxuu wareede ruuxaanta faraha ka qaad 20 baabuur iyo 20 baabuur dan iska horgeyno waa laba dawladood isleeyeen noqonaya inaga daa jaadka bila cashuura oo in afdilniyo kooxdiis ay meel dhinaca burco ay soo dhiidahaya ay ku soo garay kii jeegaanta oo gaafani qaadka la yiraahdo ka kala waxa la yiraahdaa 571 dawladda waanu Hargeysa ma tagin laakiin de waa la socdaa ayaa waa in afdilniyo ma garanaysa taariikhda wada jirjiga ma 571 la soo
اللهم صل وسلم اوكي وزهور اسكره زهور بس كده انا اريا كود كو حبه مودي 57 فرجينيا 571 اوكي انت marka laga tago ayaa qaadkiibu arrinkii gaaray arrinku wuxuu kula gaaray sidaan la socono waa la kala qaylaya arrinkana waxa ibtooda ay ka timi jeeganta lagu celceliyay ayba dadku arkeen qabiyaal toosa waliba qoladan kale ayaa u aragtay in deel dhinac loo laalaaday dhinaca siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo waliba qabiyaalada lafteeda qabiyaalada marka ka marayso waxa jirta dhawaan laba beelood ayaa isku dhacay meesha la yiraahdo darweyne dhinaca ergabo weey labada qolaan kulli yaraanteedii inta garanay isku dhici jireen waxba iska diri jireen markan dhicid baa yar fogaatay oo xabado ogaalkay 20 baa ku dhintay labada dhinacba waxa kale soo baxay warar sida Sultan Maxamed Sultan Abdul Qaadir uu isagu afkiisa ka dhawaajiyay Sultaanka guud ee Soomaaliland oo uu yiri dawladda ayaa u raacinaysa iyadoo jeegaanta u raacinayso qolanka ruuxaanta hub loo geeyay kuna hub geeyay hadalkiisa waxa aad u xumaaday Muuse Biixi oo ka hadlay taa ku noqon mayno nin kale oo Suudaan ayaa isagu wuxuu ka hadlay in burco gaari gawadha ka amba baxday jeegaanta u heelanaysa waayahay maayarka duqa magaalada maxaa la yiraahdaa governorka magaalada ii sheegay burco ayaa isaguna waxa uu ka hadlay inay qabteen gaari sidii hub oo burco laga abaabulayay oo geynayay marka mar haddii governorkii sheegay way jirtaa hubkaan meesha la geynayo halkii nabad laga dhalin lahaa oo dadka loo tagi lahaa loona war kala jooga walaalaatin ayaa halkaan maraysaa qabiyaal xumada Soomaaliya haysta waxa kamid ah waxay leeyihiin dadkii waxa ku dagaalamay darar weyne laba beelood oo walaalo ah markas waxa la raacinayaa oo walaalo ah waa arrin aad u wanaagsan waayahay tukaraq waxa ku dagaalamaya laba qolo oo cadow isu ah marka waxa idin leeyahay tukaraq waxa ku dagaalamaya laba walaalo ah ee Ilaahay kala qabooji xaqan waxa ku dagaalamaya laba walaalo ah ee Ilaahay kala qabooji marka in Soomaali maanta ay walaalo iyo cadow isu aragto cadow bay leeyihiin dadku laba cadow soo fadhiya marka la siyaasadayo anu tukaraq uma arka laba cadow soo fadhiya laba walaalo labadaba wareersan ay ma loo arkaayo u baahan in la kala gaaro ayaa fiican labada beelood ee dagaalamaysa cidii ka dhimata iyo labadan tukaraq ku dagaalamay cidii ka dhimata sheekh hadii ay jirto qeylkaas la helayo sheekh halkaan soo fadhiisan oran karaya ninkii galaawo ahlu janno ma jiro hadda dadku sheegna mar hore la wada gal la hadii taas oo shahiidnimo iyo jihaadnimo waxa jirta midna ma aha marka aakhira marka la tago xisaabtaasi meel gooniya ay dadkaas istaagi doonaan intii nool yihiin nafta ku jirto ayaa wanaagsan qofku inuu ka fikiro waxa kale oo jira dadka qabaa'ilka u dagaalama haddaad reerkiina u dagaalantid oo lu kugu go'do dagaalkii labadii beelood way heshiinayaan iyadoo weli lugtu ku go'an tahay dabeeto adoo laangaro oo laba uwad ku boodaya ayaad streetka istaagaysaayoo reerkiina baad u gacan hadanaysaa bal inay ku sii qaadaan ilaa magaalada ku qaadi maayaan baabuurka lagu joojin maayo marka waxaad leedahay war reerka aad u lug beeshay soo ku gaariga ku joojin ma qabiiladu waa inta moogta ilaahay soo kala haday carada jeegaanta iyo ruuxaanta waxay maraysaa in shirweyne ay ku baaqaan warar hoose oo aan helayo ayaa tilmaamaya in arrinta markii sii ballaaratay Muuse Biixi oo imika ku jiro inuu dib isu qabto oo wasiirka arrimaha gudaha in ka inuu bedelo oo ka dhigo nin ruuxaanta in balance kale oo sameeyo oo ruuxaanta wasiirro kale oo magacaabo si loo raaliyo reerka la doonayo iyadoo xukunkiiba la qabtay in haddana weli arrinta chatku waa la kala qaylaya marka carada iyo waxa sii qaaday qoladan ruuxaanta oo wax marayaan shirweyne ku baaqeen iyo waxba ku leeyeen wararka hoosan helaya waxa sheegayaan in ay doonayaanba in ay dawlad magac kala leh oo xagga dambana ay kaga jirto Soomaaliland ay sameystaan berigi Jarmalku ay Faransiiska qabsadeen ay wax noocaas Faransiisku ay sameystaan wadamada hantooda Ruushka markay qabsadeen Romania iyo Hungary baa iyana maamul jiray wax kale ka hooseeya iyo taariikhsanaya ay sameeyeen laakiin inagu waxaan leenahay markastaba hal la walaaloobo oo hal la midoobo oo qaladaadka hal la saxo oo cidii awoodda maamulka qabata iyay ku tigtigsan dadka kale iyadoo ha noqoto
dadka tanaasulka hada jeer samaynaysa sheekooyinkii jeegaanta iyo reexaanta inta aynu kaga baxaynaa bal mar kale aan ku nasanno qadar xayeysiis haldhaha international product company inkastoo hibaaqay midabka hilaacay heemaaldhalaalka ee halka galay raartii hirfog laga arkaayo habeenkii iftiimiyo timaha haldhaagee haabhaabtay sinahee aad haatan leedahay hibe ee babixiyo rabbi kugu hagoogiyo yihiin haybad iyo sharaf waa inaad had iyo goor kiimikalka ah halistee foolka kaa haleeya ee u horseeda finankiyo wixii timaha heeree kaa hoodhinaya iyo hagardaamo oo idil hubsatood ka dhowrta allah kuwa aan la hurinee timaha kuwa hagaajiya haraqiyo basaastiyo ka hiraaya toxirtee nafaqada ku habayana ugu hagar baxdaayo saliidaha horyaalka kariimada lahuba iyo shaambooyada hadeer yimi ee haldhaa ay ku qoran tahay hagaaga ugu macmiisha haldhaa international product company waa kumana casri oo fadhigiisu yahay dalkaasi maraykanka wax soo saarkiisana u soo gudbiyey wadamada qaaradda afrika oo soo saara alaabooyinka ay ka mid yihiin saliidda shaambooyada kariimada iyo sidoo kale nafaqada timaha la mariyo oo casriya kana samaysan subag saafi ah oo burcada waxaana dhammaanba alaabooyinka uu soo saaro haldhaa international boqolkiiba boqol ay ka samaysan yihiin midho dabiici ah oo ay ka mid yihiin morilla argon iyo sidoo kale saliidaha maraaka waxaa sidoo kale uu soo saaraa shaambooyo oo isticmaalayo timaha madow iyo sidoo kale timaha midabka ah amaba timaha cirrada ah waayahay aynu taa intaa kaga gudubna waaya haddii ilaahay ku run yahay arrin dhinaca bulshada ah ayaanu eegi doonaa dhaqanka oo laga sii fogaanayo meelo badan marka dhaqanku waxaa ku jirta xitaa habka dharka loo xidho dhar xidhashada ayaa ku jirta sida timaha loo shanlaysto ama loo goosto ayaa ka mid a sida inagu malaha adigu mid rabaaniya ku haysa mid rabaaniya ayaa beri dhexdaasa ayaa waan la kaftamaya yaasiine waxaa jirta gabdhaha soomaaliya jooga marka loo yidhaahdo inan baanu bal haddii ilahay ku reeyay xaggaaga usoo wadnaa ayn bay odhanaysaa laba arrimood miyuu leeyahay bidaar iyo calool miyuu leeyahay marka runtooda labaduba labada aad buu necbi waxaan xasuusta Addis Ababa ayaa kabaha marka lagu baalashay caloosha garanay cali maxay bidaarta ku naceen yahay meel la tiigsan male meel lagu yarnasto male qofku xitaa markaad u yar tacsidanaysid marba sidaa tiraahdaa raalliha mo haddii dee meel gidaar aad qabatid waad yar boodaysa waxaa jirtay nin aad u calool weynaa ayaa Addis Ababa kabahu yidhi ii baalashay mid yar kabaha marka Ethiopia adoo gashan adoo fadhiya lagu baalashay alaabtina saas ugu horreysa marka yarkii wuxuu sugay yarkii baa yidhi waan dhameeyey marka yarkii buu hadla wuxuu yidhi adeer iga dhalaalay bahasha lacagta ku siinaya aad iga dhalaalay marka yarkii baa yidhi aad waa wiil yar aad baan u dhalaalay adeer bal adiguba eeg kabaha markaasuu intuu qosol ku dhuftay buu yidhi adeer kuwa haddaan arkayo maana ku iman lahaaba isaguna iska daa kabaha maca yarka ma arko yarka hadalkiisu buu maqlayaa dibasha dalka gaar ha dibasha waa wareer mo ha hadawna xagga dambe ka istuuyo ha ninka saaxiibkan wuxuu ku leeyahay nin aad u caloweyn ayaa isna wuxuu ku jira groupka friendskan marka islaantii baa u dhashay marka uu noo yimi wuxuu yidhi maasha allah islaantii baa dhashay ayaa umushibir marka nin aad u kaftan badan ayaa eegay markaasuu yidhi maadaa umulay mise islaanta ya dee mar islaantiiba 9 bilood bay ahayd tiisu waa 12 waayahay intaa kaftan kala aynu ka gudubno waxaan u soconay waxa weeye sheekadan gundhigeedu xambaarka ilmaha waa kii xanjeerku waa maro lagu xidho ilmaha oo halkan qaydna waa la yidhahdaa ama qayd oo halkan laga gunto xanjeerku waa habka loo xidho qaydkuna waa marada xambaarkuna waa magacii guud marka ilmuhu dhabarka ayuu saaran yahay markuu dhabarka saaran yahay waa safe nabadgelyadiisi meel fiican buu ku xidhan yahay halkan markaynu nimaadno gaalada iyo waxay samaysteen dee waa dad horu marayoo shandad yar oo ay yarka ku ridayaanba laabta sidii kaanguriga oo kale dabeetana suunka halkan baa laga xidhayaa sida suunka baabuurta laakiin calowtaas safe ma ahayn teenu maya marka xambaarsan tahay umba ilmiyo meeyda ay marka dambe horta waxa jira qaar khaldi kala way jiraan laakiin isagu wuxuu ahaa hab la barto oo ilmaha oo mar walba laga warayo hooyadu way calool lagu shahay marka ilmaheeda inta xambaarto iska qaadanaysa neeftiisa la socotaa waxay la socotaa inuu hurdo
inuu kacay marka isxambaarka ayaa ilmuhuna ilaa da'baa dal xambaari jiray okay sinta ayaa lagu qaadaa sometimes isagoo aan mara ku xidhnay markaasi waa si ku meel gaar oo meelahan dhadhow guriga dhexdiisa imika waxa aad noqotay magaalooyinka waaweyn Hargeysa ay kamid tahay in xambaarka ilmaha la iska joojiyo ma jiro ilmihii dhinacun baa lagu wadistaa halkaa marka jidadka markaad isagoo qeydna ku xidhnay markaad dhaafaysan adoo degdegsan ama mid qaad soo iibsaday ayaa ilmihii jiidhay dhul ku dhacaya hadday turunturooto kayoon bay barkanaysaa ama uu ka siibanaya marka eg nabadgelyadii ayaa qeydka tahay marka gabar kasta oo la weydiiyo ilmaha ma xambaarta waxay ku jawaabi doontaa maya ma garanaysaba gabdhahan dambe oo dhan marka dhaqan laga tegey ay noqon waxa lagu baahay hooyooyinkii in ay baraan gabdhihii intaan la guursanba in ilmaha ay xambaari karto oo ay ka warhayn karto oo eg xambaarkani wuxuu soo dhaweeyaa oo keenaa jacaylka u dhexeeya ilmaha iyo hooyada marka ilmuhu wuxuu abaal u hayaa hooyadii kuwa ugu waaweyn xambaarkaasaa ka mid ah wuxuu garaadsanayaa isagoo la xambaarsan yahay jacayl daraadii oo magaalada meel kasta la geeyey oo sometimes ay de magaaladii daawadaan oo dadkii daawadaan oo ilan caqli bay leeyihin nin saaxiibkaya ayaa isagoo weyn ba hooyada xambaari jirta hadda wayna dhegeysanaya lakin sheegi maayo way garanaya saaxiib magac ma sheegaya hooyadii baa jeclayd dabeetna may 10 jir buu ku hadlay hadalkii baa u yar gooyey marka dambena hadal mana buu noqon doonaa markay xambaartay hooyadii waxay u haysataa inuu wiil yar yahay xaafadahay bay la tagtaa iyadoo xambaarsan oo magaalooyinka tagtaayo kuwa sheekaysta maalintii dambe guri bay garaacday gurigii baa laga furi waayay isagana cadceedda baa haysadee cadceedda Soomaaliya waa tan kulul markay 3 jeer garaacday ayuu arkay saantu tegira korin loo qoyliyo hooy guriga lama joogo inaga saarin ولا الحباسية يا قرأنا الشيء ما أنت شو قاتوا إنه نوسدو يا مركب بل أن داولنا أن علمه هو قار كم ده هوين كم قال هرجيسة أو أن سورة دودي يجوز أول السوق ده قار كم مرة أنا هاي جمرت جنعت أو سوق قاعد خدمة waxaan aragnay dhaqankii hore oo nin ula haanjin oo dumar reeb ku aragnay iyagoo ilmihii yaraay wateen sinta ku wada ama laabta ku wada hadday turunturootu ka dhacay ilmihii halkaas ku dhacay inuu gaari jiro inuu qof jiro khatar gooye wax walba dumarka imika inay iska daayaan waxaasan jecel anagu sidayadii hore aan xajeerka u jiidanay ilmaha oo shaqo walbaan wayno aan ku xambaaranaynay ku qabsanaynay oo dhulka baa aamini jirnaa inay sidoodii ay noqdaan dhaqan la mid ahay oo ka sii naagaha Soomaaliland ay ku dhaxlayaan ilmaha anagu markii hore aan aqbalaynay kubadkayaga haddaan bilaaqayd laabta ku qaado inuu dhulka laga dhacayo markuu ku dhaco sida beedka buurayo ayay naga ahay qaydka ilmaha kale inaan kaga jirin ilaa aan xajeer kursiyo ilmahayga waxbana qaban jirin ma garatan قدرت سمع واسفعل سوق بالله مريا والله تشيري والله شو حبارك وقتها سيفتي والله قتي هل كان وركد بدا حقنا مريكا كاو دامay gaari mareykan ka qaata ilmihi murtadad gaari baalkeer ku ridi sibad qana samud waa nin baabuur kale wato soo arkaba laakiin marka halku sidid waxa aabuhu uu qaado oo intuu guriga joogo hayo oo mar adduunka waa naxariis keenaysa iyo waalidnimada waxa loo baahan yahay asaaska guriga waan ka gudbi doonaa waxa inoo soo socda wali Yuusuf Muuse Cabdi oo maashood loo yaqaano oo aynu ka wareysan doono heestii barbaro u sameeyay laakiin waxaan gelin doonaa wariye iqra gabadh la yiraahdo oo joogta magaalada Jowhar Hirshabeelle ayaa iyada oo duubanaysa barnaamij meel inta tagtay ayaa inta loo yimi markuu warsa askari kamaradii ka jijibisay dabeetana iyadii ayay sida baabuurka dul mareen gaari ma mareen way ku joogsadeen way garaaceen laakiin marka maxay sameeyay gabadhu wax sameeyma maaha waxay diidayeen barnaamijka duubanayso waa laga yaabaa ama waxa ay duubaysay ay diidaysay aburinta
waxay ka mid tahay caburida saxaafadda marka gabadha inta u yeedha may odhan arrinkaa ha duubanin may odhan laakiin waana gabardee horta wejigii bay ka bedeleen quruxda gabadhuna waa wejigana gabdhaha lagama dilo askarina inuu gabadh gacan u qaado inuu ninkaan waxaan oran lahaa dress inta laga dhigo hal la xidho weliba qof noocaas sameynaya nin dress uniformku ha eeg horta dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa shaarkan anu aan gashanahay iyo shaarka askarigu inay kala duwan yihiin shaarka askarigu waa dawladdii oo kula hadlaysa dawladduna dadka malayso oo ma xidhxidhee dadka way xanaanaysaa oo urursataa tarbiyad bay siisaa kii ku gafana si hagaagsan intay u qabato anu shaarkayga cid kuma kaxayn karo awoodda shaarkan aad gashan tahay ee aad ku kaxaynaysid wanaagiisa tus ha waxaana sida waddanka u dhashay baan garanayna ha waxaa jiray waddan islaan meel bay yar fuuli kara weyday marka askari labisan baa arkay askarigaasi wuxuu arkay gabadha qofkan dumarka meel derbiba ma yar fuulaysa oo meesha ku yar cadiban dabeetna waa qof dumar oo dad ma taaban kartid buu sira ma qaadi kartid intuu laba gacmood dhigtay ayuu aniga korkayga dhabarkayga ku istaag sidii jaranjaradii ama gambarkii intay u booduma dhac waa askarigii baa labada jilba dhiganaya transfer ma qaadan tankii buu yidhi mogt baa tiri marka waxay dareemaysaa gabadhaasi wanaagga askariga okay askartan gabadhi markay garaaceen ayaa gabadhi waxaa la geeyey xabsiga waxaa la geeyey saldhigga booliiska saldhiggii booliiska jawhar markii la geeyey gabadha eeqra la yidhaahdo ayaa ninkii haystay taliyihii ayay tiri taliya nimankana soo garaacay show nimanka garaacay aad ba umaysay garaacine taliyuhun baaba lala sugayay inta badan knock out buu siiyeyba gabadhii taliya kii loo geeyey isagaa ku bilaabayba weli si fiican bal horta gabadha la arka wejigeeda qaabkiisay noqotay horta bal wejiga gabadhaaga بسم الله الرحمن الرحيم إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن دمان هرتا إن أمد الإسلام كائن من ولي بيدافعها عالم كي كجوكتو إن سلام يا إن سلام كدب إن وحنا هاي وريق عبد الله الرازق اللبن إن وحنا هاي إن قفل بناء إن سيدا وجدانا إن دكتور مقبا إن وحكو على وجهيجا إن شلي إن حلي أنقذ جري إن هولي الشقة أيا إن أنا جو مل وحكو بنا إن وحاي صور إن أسكر kadib askartii waxay isku dayeen inay gacmaha ay la galaan waxay jijibiyeen agabkii aan wax ku duubanayay sida kaamirada markay kaamiradeeda ay jibiyeen aan weydiiyay sababta ay kaamirada ay ku jibiyeen aniga gacmaha ay la galeen waxay ugu tumeen qorbaadkiisa kadib gacanta ay la galeen waa u jeedin waxa dhabanadeeda ka muuqdo markay gacanta ay la galeen saldhiga si xoog ay ugu wadeen ay kaxeeyeen markii aan saldhiga tagay oo aan islahaa cadaaladaad ka soo helaysaa saldhiga oo aan loogu yeeray taliyaha saldhiga maxamed siyaad cali canjaax markuu yimid oo aan ku dhahay taliya laba eedaan ciidan baa sidaan ii soo gashay wayna soo weerareen aan ku dhaho waxay gabadhaas waa dilan tahay weliba intan wejiga nabarada aragtaan gabadhaas markii ay wax duubaysay iyo markii ay sheegtay quruxdeeda ma malayn karaysa gabadhu ma habadsaday طول معك عارف فاضل مرتين ماي لمكان عسكرت ده أنا ورقة صوماليا هي أفريقيا بقى وعدو إكساكتي هو كلمة وعدو حتى قفكم مركو صايح رأيه وين البرد راح يكون استدوني والدقن أن بوليسك صوماليا اللي بتوبره وحالة توبره دكتونه ينستمو يعني أنت كلا ودقن قفك سيد الله واحد له إيه وناكسن لا مش مترينك ومترام دكتور بيرترجع ولا سوق البوليس كلا سوق أيوة سوق اللي وحن أنا وباقي لها ninka waare madaxweynaha hirshabeelle in tallaabo sharci uu ka qaado taliyaha qaybta booliiska ee gabadhaas sidaa uga gabadhu waxa dambiga ay gashay iyada maxkamad baa la wareegayso dhib male aan madaxii gabadh dambi male dambigeeda waa lagu qaadi karaa laakiin muhiimaddu waxay tahay goorma gabadha dili jir ya ha waxaan xasuustaa saaxiibaya ninbaa beri xaaskiisu ay marba nabar ku dhufan jirtay nin aad u xisho badan buu ahaa isaga dili jirtay marka isagu marka ay garaacayso indhaha ay xagtin iyo dumarku waa kala kulliin marka markuu magaalada yimaado waxaan kula taliyay at least ha imanin magaalada adoo xagtin meeran marka isagu wuxuu wajiga ugu dhiganaya mu dhabarkii su'aasha markaan weydiiyay ma idoo iska dhacdaa kadis in mamar isha faraaw gal ayuu wuxuu yiri
niyow anigoo intaa la eg ayaa waxaan diidanahay gabadhii buu la dagaalamay marka ceebteeda waxaan sidhi sidaa ku laq runtii waa nin wanaagsan oo diidaya inuu gabadhii xaaskiisa fara saaro maxaa dhacay haddaba maalintii dambe soo kursi ku fadhiya ayin bay madiibad maraqa oo karkaraysa xaggan kala soo istaagtay midigta waryahayn bay turan sidaa u aagay ayin buu arkay maraq karkaraya madiibada intaan kuushin buu isiro cid kula aaday bruce lee filmadiisa ma daawan jirtay sidii jabaniiska cirkaa intay tagtay ayay dhulka soo dhacday marka waxaa ka jirta lugiga gacan anu marka waxaan ka mid ahaa dadkii la qaaday cusbitaalka la geeyey markaa cusbitaalkii geeyey ayaan ku idhi dumarka waa la dilaaya maxaad gabadha sidaa ugu dishay wuxuu niyahow maraq bay damacday madiibad karkaraysa inay ugu shubto dabeeta gabadhii oo la yar kaba wanaagsan ayaan u tegey waxaan ku yidhi walaa waxaan ku weydiiyey sidee u dhici karta ninkaagii aad carruurta u dhashay ilmaha aad madiibad maraqa ugu shubtay waxay tiri waniga kuma shubayne waan siinayba ha marka waryaa aan idhi ayin buu wuxuu qaatay waa aniga indhaha faraha geli jire inaan taadkadii bedelayo aan maraq ku shubayo dabeetana qofku de waa laga riixaaye halkii ugu dambeysay ba hal sabaaxada cirkaa intuu latan buu dhulka galay mar buu marka mar buu dagaalamayoo markiina dee aduu de labadii ciyaal waxay noqotay inuu isagoo hayo dhabta saaro 6 bilood dhowr bilood inuu isagoo dhabta ku hayo oo wuxuu soo karaa sas marka gacan horta ma fiicna ninkaa waan ku ammaanayey inaanu intii hore dhan gabadhaa taaban laakiin tan dambe way la jeed wixii baa ka batay marka dadka askartaas in waare waa madaxweynaha hirshabelle inuu ka daba tago oo uu arrintaa baadho waayahay qodobkaan intaa aynu kaga gudubno وهاجاك هستي بربر dadka wareerisay toddobaadkii waxaan ku soo qaadanay anigoo inaan Cabdifataax Daahir ciga la yiraahdo aan ka wareystay 2010kii isagoo qaafiyad noocaas sameeyay xilliga wanigi sii deynay barnaamijku sii daayay waa la iska dabayay dad badan ciida ka badan ayaa la soo xiriiray oo nin walba leeyahay internet sameeyay aakhirkii waxaan soo helay ma ee qaafiyada ma way iska leeyihiin dama saxsana ciido miisaan ma saarin barbar char kar kur marmar waxaas iska ana xooga ku darsan markaan xooga ku daray heestaadii barbar gabadh ku samaysay kab laxan kan ku saartay karka marka ku caashaqday sacsac intii isu tuurtay barbar kol baa waa sacsac waaye marka waxa dhacday halka ku haya Yusuf Muuse Abdi oo maasho loo yaqaan jooga magaalada Diradhabo waa nin reer Djibouti ayuu ku sameeyay sanadkii 2004 sawirka isagoo meel ka akhriyayna inkastoo codka si fiican loo maqleen kilib yar baan ayaan ka tusi doonaa bal marka hore kilibka wax yar oo naqan aan idinka tuso Djibouti markii uu ka sheegay أيوك يا شرطة قلوبي شرطة أنوأت على كيف يوضع الظهور أنا إلا مصدر أرى أحمد على العرض إلى بسيء الرعو فهو خير المرمر أنا كثير سر يقول مر بريتي على الظهور مقعدة تطرق مكة تقول در وحي فمانا تر وناك لا تكر هذا وعن صرصر انت الحين waaye waa mitaajilo laakiin bal waxaan horta meesha ka yimaadeen iyo sidii tahay Yusuf laftiisi ayaan kula xidhiidhay isagoo jooga Diradhabo khadka telefoonka anigii Yusuf Muuse Abdi oo maasha Allah yaqaano sheekadana dhex bartay bal aan wada daawano Yusuf Muuse Abdi maasho marka hore waa ku salaamay waan ka qaaday cali aad baad ma santahay marka hadda waxa joogtaa Diradhabo hadraban kala la yaaliyo Mr. Madshood bal marka hore waxa ay sheegtaa qaabka maansadan qaafiyadeedu dadku ay ka yaabisay heesta iminka dad badan ay daawadeen barbar iyo maansa ka horeysay oo aan ka duubay in la yiraahdo Cabdifataax Daahir cige oo qaabka u socotay waxaad ii sheegtay inaad tahay ninkii bilaabay sheekada gabigeedaba horta sheekadu waxay soo martay marxalado kala duwan waxa la yiraahdaa qaafiyada noocana
tidcan waxaana soo bilaabay ahayd cumar macallin kadib waxaa ku xigay abwaankii kale weynaa reer jabuuti ahaa cumar kuul marka marxaladaha ay soo maraysay qaafiyadu xaraf keliyaatay ahayd oo xaraf keliyaata ugu dambeynaya masalan annakoo joogna farxad fadkeena noqday ballad saasoo kale xaraf keliyaata ugu dambeynayay marka halkaa ay soo gaadhay waxaa marxaladii saddexaad ee ku xigtay marxaladan laba dhacaysay ahayd waxaan sameeyey heestan laba dhacayso ee hadda barbar isku rogtay la bedelay 2004 waxa cajiiba 2004 waxaan diganayaa dugsiga tababarka macallimiinta Djibouti xaflad hal qabtaa la yidhi sanad dugsiyeedka markii la soo gabagabeynayay anigana waxaa la igu tuhunsanaa inaan suugaanta sameeyo marka waxaa la yidhi bal wax soo samee waan fikiray waxaan sidii dhalinyartan faransiiska wax ku baratay iyo macallimiintan afka faransiiska oo fahmaysay caddaanka iyo dadkan carabiga canfar isugu jira ee Soomaaliga fahmay maxay fahmi karaan oo ku qoslin kara oo madadaalo u noqon kara oo fariin xambaarsanaan kara markaas waxaan saan u fikirayay waxaan xasuustay gabaygan ayaa igu soo dhacay ama heesan ayaa igu soo dhacday oo ah hees ku cusub oo ka duwan tidcantii hore aan sheegaynay ay soo sameeyeen labadii abwaan ee hore ay xarafka keliyaad ku dhamaanaysay qaafiyada carabiga lahayd oo laba ah waxaan u bixiyay anna tidcan laba ra'lay ah waa tidcan laba ra' wada xagga dambe ka galayso waxa cajiiba afka Soomaaliga cali oo erayada ku soo arooray heestan waxa ku jira 30 eray baa ku soo aroortay xagga dambe ka galayso oo laba ra'lay ah 30 ka eray baa Soomaaliga ku jira يعني حرف كلياتي وحوتا أفر شن بوتا شن هنلاحظه وشن تشقل مثلا عندنا بعض السواقات هو بربر 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 أساس نقولها مركا كاركود معنا ما سمعنا أنا ضدكم مفهمي كران كاركي معناها لهاي ودوان سواقاته هستي ويكوتشتا وكوبي صدن حرف أي كوبي صدن كالمدود هنلاحظه كوبي صدن كالمدود أي هست كودك كذا qofka iga daba sameeyo wuxuu ku qasban yahay inuu koob iyo 30 ka u isticmaalo meel kale uu doonto ma jira kelmadu leerno halkan bay ku xiranto waa sir waa password way xiran tahay marka saasay ahayd sheekada qisadu waaye sheekada waxaad ka akhriday Djibouti sida ay sheegtay sanadkii 2004 soo ma anigoo keeni doono bal sawirkii xilliga Djibouti aad ka hadlaysay bal ii sheeg sida ay u socotay maansadaasi in yar igu celi odaybaa maalin gorgor waran ku dilay sursur islaantoo joogta barbar ayuu u keenay tartar wuxuu ku yidhi jarjar hadduu adkaada kirkir biyo u doono durdur hana ilaawin dardar adoo ahmaanta carcar ilaa ku siiyey curcur ha ku bakhaylin marmar hana ka dhigin xirxir iyo weliba mirmir bariiska yaalla gurgur magacda jaarka qorqor markaa kadib u dirdir wixii xumaana tirtir wanaagga reerka karkar hadalka wacan sarsar intii xidhan furfur adoo qaybin farfar dhashayna maanta yaryar adaa daryeeli sirsir hana ka marin girgir adoo seexan jirjir hana dhegaysan warwar intaan reerka werwer iyo ku dhicin burbur ama ku odhan yuryur saasay sheekadu marka sheeko dhinac majaajila ka abahay dhinac majaajili ka tahay dhinacna waxay sidaa fariin kale oo wanaaga oo matalan dadka inaa wax la siiyo iyo inaa carruurta iyo reerka la daryeelo waayahay dadkii kaa daba qaaday ama abwaanadii fikirkaagii xaday dabeetana iyaguna isticmaalay oo heesa ka dhigay sida waragta horta marxalado badan bay soo maraysay qaadashada heestan dad badan baa isku dayaya inay heestan ay bedelaan ay koobi gareeyaan laakiin inta badan waan dhegaysan jiray waxyaaba badan baa ka khaldanaa xaraf keliyaati ma isticmaalin aniga ra' keliyaataan isticmaalaya laba dhacaysa iyagu waxay isticmaalayeen matalan lam la bay isticmaalayeen malmal oo kala dha bay isticmaalayeen badbadh oo kala xarfo badan oo isku dhex jiro jacburan bay samaynayeen oo ra' keliyaati ahayn laakiin hadda waxaa cusub abwaankan heestan barbar iminka dadku ay barbarka iskula tuurayaan waan alifa sheegayo abwaankaasi wuxuu isticmaalay xarfihii aan isticmaalay laakiin wuxuu isna garan waayey heestan sidii maxaa la yidhahday heesaha soomaalida ay ahaanayeen miisaan iyo qaafiyad bay leedahay isagu qaafiyadii unbuu isticmaalay oo miisaankiibuu ka baxay gabayguna waxaa ka muhiimsan qaafiyadda mar walba miisaanka ka muhiimsan oo gabayga soomaalida ay jacbur tiraahdo waxa uu leeyahay miisaan buu leeyahay ee qaafiyadda laga xoroobaa
marka isagu iminka qaafiyadiina qaafiyadii oo keliya soo qaatay oo sheekoonku xag hore ka geliyey hadal iska caadi ah marka qaafiyada marka wuxuu yidhi weliba anaa ugu horreeyey khaladka weyn oo qofkii ugu horreeyey sameeya qaafiyadan laba dhacaysa waa anigu waraysigu u bixiyey marka arrintaa waad beeninaysaa waan beeninaya si cad baan u beeninaya anigu welibana waxaan ku ogaaday heesta aan ku baraarugay dadka reer jabuuti heesta aad bay u yaqaaneen tv-ga reer jabuutina way ka martay rtd-da rtd-ga way ka daawadeen iyadoo ka akhnaa nin saaxiibkay oo khayra laydhaa uu leeyahay nin saaxiibkay heestan sameeyey marka dadka dhegoogu way yaqaaneen dadka badan ee barbarka isku tuuraayo intooda ugu badani waxay ahayn reer jabuuti waayo horey bay u garanayeen markay maqleen nin kale oo sheeganayo anaa loo ugu horreeyey kolkay maqleen ayuu mawjadan buuqu bilaabantay intii la isturturiyey yusufow intii heestaadii dadku ay isku turturayeen barbar adiguna ma isu tuurtay barbar isagoo daawanaysa aniga soo dhigay videoga waxaan kusoo qoray meeshayda heestan maanta 2018 ay dadku barbarka isku tuurayaan annagu 2004 baan jirjirka isku tuurnay baan soo qoray waya aad iyo aad baad mahadsantahay yuusuf muuse cabdi maashood inagoo waqtiga ka faa'iidaysana adigoo jooga magaalada diradhabo oo ah ninkii bilaabay heesta qaafiyadeedu ay barbar jirjir kirkir karkar kackac ay u dhacayso waxaan علي قرر له كعكع كم جرى قافية دي واتكب حدا. وركعكع سنين كلوا هاي سووا دتك أياد وداودين. واي. مي أبوانين تكلمونو قال هنا قافية صدق داعيسية أفر داعيسية كذا لكن تلا بداعيسه. أنا أقول ري هدي إنا سميان دونا يا وين مرتي يقول نقدر 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 نقول ري. شعب برنو عاسى برنامج ككفتك السياسة من الوصل سمين دونتا مستقبل. ونيسو سمينا إن شاء الله. بالقافية عينك أودا عيسام كاسي. هذه أدباد ما صدقها يوسف ما شو. أدباد كوم هذا. ميدان كوكو يقرأ له. واي. هذا محل الميزان كيف هو حواليا تضبع يسقال يعني واجهفته هي مقالة ورلاي. لكن صاحب كي كوبيا تمن يلا بيا تمن بمرق خالك شقالله بقليان. هستو سمي. مركا خدك وكبح. مركا وايس وكبح خدك وكبح. واي. أدباد ما صدق يوسف. بني سلامة يا ود ما تنتين سماية دورنا أدبر سلامة يا كندقيري واقع هي أبوان كي شيكتي إيدا أنا هرو سمي هذا بربرنا شيكتي سوا كعك وياه إنه برنامج كان أنت كوسو لما يسترين أيان ثلاثي برنامج أيان سوق الدين دولار ورتو واحد دوينا وبلغ قاعد دونا إن ما هو حكي شقيني لبده ويجي ودميسي إن أي نصور حق لنا برنامج كم تشاتشلو صعونا يسلم إلى 6 دقائق أو لبنين أي 60 دولار لأن هو مسؤول هذا الشيء مروى وزير مروى سلطان مروى أقاسمي مروى الشيخ مربى إيش يقتره أي يسوي مثلية مركا وحي وخربي وحكوانينية ننكره مركا منا دردر أيو كم مثل دولار منا الضناية marka danay dardar sheekadoodaas waxay noqon doontaa mid taxana oo barnaamij kasta aan ku soo qaadano marka ninkan daneeye ninkan markuu waaniyo arinta ka waaniyo kana uu ku adkaystay wixii uu sameeyay ay uu iga dambe ogaanaya in media ay arinkiisi uu galay dabeetana wuxuu qoomaynaya wixii uu sameeyay wuxuuna ku dadaalayaa in uu toosiyo oo wanaajiyo aan u sameynagana wacyi gelin bay naga tahay toddobaadada dambe ayaan bilaab doonaa barnaamij qurux badan ayuu noqon doonaa danay iyo dardar sheekadaas waayahay taladii ugu dambeysay ee barnaamijka maanta qodob kasta oo aan barnaamij ku sheegnay ayaan tala bixin yar ka dhiibanaynaa marka waxaan ka bilaabi doonaa kursiga gabdhaha horan waan uga hadalnay runtii waxaan oran lahaa arrinkaas waa arrin aad u xun caalamka nimka la joogana waa waxyaalaha aad u sii yaraanaya ee laga ilbaxayo laba arrimood ayaa aan oran lahaa labada maamulada Soomaaliya ka jira inay sameeyaan in xeer ciqaab loo sameeyo kursiga marka uu horeysa oo si loo xadido oo qofkii loo arko in ciqaab la mariyo oo aan lagu dhiiran iyo in protection ximaaya wax la yiraahdo in la sameeyo in gabdhaha wax lagu difaaci karo ama hab ay isu difaaci karayaan in la helo in wax dal hal bar marka isdifaac marka in difaac gabdhaha loo sameeyo oo loo sameeyo barnaamijyo wacyigelina oo inta meel lagu yeeray orientation la siinayo sida ay uga hortagi lahayn dabeetana baadiyaha iyo degmooyinka loo sii gudbin lahaa in guddi la sameeyo barnaamijyada noocaas dadku Soomaalidu
inta badan qaar badan xishooda way jiraan inta badan ma xishoodaan laakiin way baqaan inta baqaysan xishoonayn ha loo sameeyo xeerarkaas ka kursiga aynu intaa ku dhaafno waxaan tegi doonaa isagana eegi doonaa arrimaha Somaliland ee jeegaanta iyo raaxaanta iyo waxaan ku saabsan wax wanaagsan dadku horta waa wada walaalo Soomaaliya dhan baa walaala as a brief waxa weeye dadka walaalihii in magacyo ay ku kala fogaanayaan ay la baxaan waa laga fiican yahay Masar Ciro iyo madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi kuma xilligan ma xilligii campaign-ka uu dhamaaday marka jeegaan meegaan reegaan mooriyaan waxa ha laga baxo ninka muwaadinka reerku doonaya ka tirsan reer Soomaaliland waxa uu xaq u leeyahay waynu helaa marka yaan la oranin intii ku codaysana wax si intii codkaada aan ku siina la dagaalan iyo dhicin qolada kalena iyo mar walba wax tirsaways oran arrinka shaqada lagu diiday ama arrinka sida lagu diiday waxay ku xidhantay doorashadii oo aadan codsin marka in dawladda la kala samaysto ama la kala baxbaxo oo magacyo la soo bixiyaan iyana waxay keenaysaa unta faraaro marka in xarig Ilaahay la qabsado oo gacmaha la isqabsado oo la walaalo ayaan iyadana aan ku talin lahaa dhaqanka in la ilaaliyo dharqaadashada af Soomaaliga la dhaqanta dadka akhlaaqda asluubta ayaan iyadana ku talin lahaa oo ka mid yahay ilmaha la xambaaro in kasha la geliyo in sinta lagu qaado in dhabta la saaro intaba hooyada wuxuu keenaysaa jacayl iyada ilmaha ka dhaxeeya ilmuhu marka uu naaska nuugayo wuxuu eegaa wajiga hooyadii raxmad baa loo saaraa dabeetu wajigeedii ayuu daawanayaa ilaa intuu caanaha dhamaysanayo ilmuhu marka la xambaaro wuxuu seexdaa wuxuu haystaa inuu hotel Sheraton ku jiro dhig buleey hooyadu waxay u baahan tahay gabdhaha yaryar dambe in la baro oo safety-ga ilmahan dhabarkaad ku qaaday neeftii ma qaadanaya ma seexday ma ka xirantay neeftii inay ogaadaan taasna arrinka in la ilaaliyo arrinka ugu dambeeya waxa weeye war hal la ilaaliyo dadka saxaafadda ka shaqeynaya oo haddii qofku dambi uu galo dambigiisii hal soo mariyo sharciga wixii waafaqsan wixii sharciga ka baxsan leh yaan loo awood sheegan tan labaad de gabdho iyo wiil way kala duwan yihiin gabdhaheennii inaynu u garaacno sidii wiilashii oo weliba wejiga ka garaacno waxaad xidigaha iyo gaashaamada u sidataan marka kama duwaniin cadow barnaamijkeennina intaa ayaan kusoo kaga baxayaa Yaasiin iyo Badri aad iyo aad baad cali u mahadsan tahay tan iyo intaaynu dib u kulmi doono waa bahda barnaamijka kaftanka siyaasadda saddexdayadana aad aragtaan waxaa nagu weheliyay Cawaale oo kamaradaina duubaya tan iyo intaaynu dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo kaftan aan xajiniyo weer ku xagan lahayno wariyayaal la soo xulay xogta shacabka siinayo ya siyaasad ku xeeldhe siyaasadda ku xeeldhe daqiiqaday tilmaameen xumaanyaanay kula noqon yayn xumaan kula noqon xaqiiqaday tilmaameen